haddii aad sidato telefoon Apple ah inta badan waxaad ogaa doontaa in lagu sameeyo Shiinaha haddiise aad sidato telefoon Samsung ah inta badan waxaad ogaa doontaa in lagu sameeyo Vietnam haa waa Vietnam dawladda aad garato ama xasuusato magaceeda marka laga sheekeeyo saboolnimo dagaal iyo hardan u dhaxeeya awoodaha adduunka ha yeeshee uma aadan aqoon maalinna inay tahay mid ka mida dhaqaalaha ugu muhiimsan Aasiya sida inay tahay meel nabad ah oo ka dhigan qiblada maalgashiga caalamiga ah waxaaba ay la tartantaa Vietnam dalweynaha Shiinaha waxa ay ka timid inay ka mid ahay dawladaha ugu saboolsan adduunka waxa ayna gaartay inay noqoto dhaqaalaha ugu muhiimsan Aasiya haddaba sidee u suura galay horumarka Vietnam كيف حدثت النهضة الفيتنامية Vietnam waa dhulkii hunguri weynida iyo iska caabinta muran la'aan waxa ay ka soo baxday gumaysigii Jabaan oo la dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka kadibna waxa ay gashay gumaysigii Faransiiska oo isna dhammaaday sanadkii 1954 intaas kadib waxa ay gashay dagaal sokeeye oo isu rogi doona gumaad weyn kaas oo u dhaxeeya labadeeda dhinac ee waqooyiga iyo koonfurta oo ay kala taageerayeen Maraykanka iyo Midowgii Sofiyeet kaas oo aakhirkii ku dhammaaday duulaan Maraykanku soo qaaday si uu u taageero saaxiibadiisa reer koonfureedka Maraykanku waxa uu la yimid awood militari oo ka badnayd nus milyan askari dagaalkaasina waxa uu ku dhammaan doonaa in Maraykanku ka gurto Vietnam isaga oo ku jabay sanadkii 1974 waxaana xigay in waqooyigu ku duulo koonfurta sanadkii 1975 kadibna waxaa xigay in Vietnam midowdo ayna dhacdo musiibadii weyneed dhulbeereedkii bariiska oo ay ka shaqaynayeen 70% dadweynuhu sooma saarin mana lahayn wax ku filan inay kaafiyaan gaajada ama baahida dadweynaha cunaqabatayn Maraykanku saaray ayaa go'doomin doonta waddankan oo ku dhiifaday inuu ku duulo waddanka Cambodia sanadkii 1978 dhibaato dhaqaale oo caburisay Vietnam ayay xoojin doonaan siyaasadaha xisbiga hanti-wadaagga ee talada hayay oo ku dhiisu isku dhex yaacay iyada oo khilaaf ka dhex aloosmi doono isaga iyo xisbiga hanti-wadaagga Shiinaha oo ahaa dariskii weynaa oo aan maalinna raalli ka noqon hanti-wadaagga Vietnam ha yeeshee sida ay tahay caadada dhaqaalaha koonfur bari Aasiya keligitalisku waxa uu samayn doonaa horukac keligitaliyaha aan halkan uga hadlayno magaciisu waa Nguyen Van Linh ninkani waxa uu qabtay gudoominta xisbiga hanti-wadaagga ee Vietnam sanadkii 1986 isaga oo bedelay nin kale oo magaciisa la yiraahdo Duwan faraqa u dhaxeeya Duwan iyo Van Linh waa sahlan yahay kan hore waxa uu ahaa nin dagaal waxa uu mideeyay Vietnam Maraykankana waxa uu horseeday jabkii ugu weynaa ee duleeya taariikhda Ameerika inta la xasuusto balse siyaasadihiisii waxa ay Vietnam ka go'doomiyeen adduunka intiisa kale dhaqaalihiina waxa uu ka dhigay mid ku jira gacanta dawladda ayna si toos ah u maamusho Duwan waxa uu u talinayay Vietnam 26 sano dhammaadkii xukunkiisuna waxa uu Vietnam u diiwaan geliyay in loo aqoonsado mid ka mida dawladaha ugu saboolsan adduunka iyada oo uu jiray xilligaas sicir barar dhaqaale oo gaaray 770%. ninka labaad waxa uu ahaa nin dhaqaale oo door bidaya suuqa dhaqaalaha xorta ah waxa uu rumaysan yahay in awoodda dhaqaaluhu aysan ku imaan karin marka ay dawladdu si keli ah u haysato dhaqaalaha sidaas oo kale waxa uu qabaa in isku milidda xukunka hanti-wadaagga iyo nidaamka dhaqaalaha hanti-goosadka ay ku habboon yihiin Vietnam Van Linh waxa uu dejiyey tubta siyaasadda cusboonaysiinta oo caalami ahaan loo yaqaano Doi Moi ha iloobin magacan waa xidmadii ay ku bilaabatay tijaabadii dhaqaale ee Vietnam Linh waxa uu ku bilaabay qorshihiisa hagaajinta qaybta beeraha qoys walba oo Vietnam ah waxa uu siiyey 3 hektar oo dhulbeereed ah oo qoysku xor u yahay inuu ku beero wixii uu rabo iyada oo ay shardi tahay in dawladdu xaq u leedahay inay qaadato dhulkaas marka qoysku ka tago ama iska daayo kadib markii la qaybiyay dhulkii waxa soo baxay go'aan lagu baabi'inayo ku shaqaynta nidaamkii beer wadareedka oo ay dawladdu lahayd sanadkii 1988 sidaas awgeed beerihii waxa ay si dhammaystiran uga baxeen gacanta dawladda iyaga oo galay gacanta muwaadinka kadibna natiijadii ayaa si dhaqsi leh u timid Vietnam waxa ay noqotay sanadkii 1989 waddanka saddexaad ee ugu weyn adduunka ee soo saara bariiska hagaajinta dhulbeereedka
waxaa la socon doona irdo oo furidda hantida shisheeyaha si loo maalgashado waddankan hase yeeshee cunaqabataynta maraykanku saaray fietnaam iyada oo sababtu ahayd duulaankii fietnaam ku qaaday kambodiya ayaa hor istaagtay in la sameeyo wax horumar ah oo la taaban karo haddaba maxaa la samayn karaa aan ka baxna kambodiya oo aan ka dhigno cadowgii shalay saaxiibbadeenna maanta sidii dhacdayna fietnaam si dhammaystiran ayay uga baxday kambodiya sannadkii kii waxaa la qaaday cunaqabatayntii maraykanka ee saarneed fietnaam iyada oo ay la socotay qaadidda xayiraadda dhinaca duulimaadka ee saarneed fietnaam sannadkii dii sidoo kale waxaa la qaaday xayiraaddii dhinaca ganacsiga sannadkii sidaas daraaddeed fietnaam waxay ku soo biirtay beesha caalamka sidaas ayuuna go'doomintii uga baxay shabeelka aasiya maalgashigii ayaa ku soo qulqulay fietnaam si loo aas-aaso 17 shirkadood oo gaar loo leeyahay hantida shisheeyaha ayaa gaartay 10% wax soo saarka gudaha waddanka sannadkii fietnaam waxa ay ku biirtay dalladda ummadaha koonfur bari aasiya ee aasiyan sannadkii sannadkii 2001 hanoy waxa ay heshiis isdhaafsiga ganacsiga ah la saxiixatay cadowgeedii hore iyo saaxiibkeeda cusub waa ameerika sidaas awgeed fietnaam waxa ay gashay iskularanta labaynta nidaamka shuuciga iyo dhaqaalaha antigoosadka waana iskularka shiinaha qudhiisu ku guulaystay keligii-talisnimo hal xisbi ah iyo horumar dhaqaale sannadkii 2007 fietnaam waxa ay ku biirtay ururka ganacsiga adduunka waxa ayna la saxiixatay 16 heshiis oo ku saabsan ganacsi isweydaarsiga caalamiga ah taasina waxa ay ka qayb qaadatay hoos u dhigidda canshuuraha kastanada xuduudaha sidaas daraaddeed shirkadaha ayaa ku tartamay in ay balaayiin dollar gashadaan waddankan oo leh shaqaale raqiis ah ma dhammaan sannadkii 2007 ilaa fietnaam ka noqotay waddanka saddexaad ee ugu weyn adduunka ee soo jiita maalgashiga shisheeyaha marka laga tago shiinaha iyo hindiya dakhliga qofka ayaa ka soo boodiyey 430 sannadkii isaga oo gaaray qiyaastii 4,000 oo dollar sannadkii 2007 dhaqaaqaas dhaqaale ee fietnaam waxa uu ku dhiirigeliyey bangiga adduunka in uu dayn siiyo fietnaam si ay isugu fidiso dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo si ay isugu xirto magaalooyinka iyo miyiga iyada oo adeegsanaysa shabakad wadooyin ah iyada oo uu jiro horumarkaas ayay shirkadihii waaweynaa waxa ay isugu yeerteen waddankan horumaraya ee aasiya bishii oktoobar shirkadda caalamiga ah ee intel ayaa dooratay fietnaam si ay u noqoto saldhigga ugu weyn ee warshadaha intel siduu waxaana ka daba yimid shirkadda samsung taas oo maanta maalgashigeeda fietnaam uu gaarayo 17 bilyan oo dollar waa horumar dhaqaale oo la yaab ah aadna u weyn kaas oo aad ku sawiran karto tusaalahan haddii aad socoto jidka dhammaan dadku waxa ay sitaan moobaylo caaqil ah 10kii qof ee dhinacaaga maraya hal qof oo ka mida waxa uu sitaa moobayl lagu sameeyey fietnaam tirakoobyada bangiga adduunku waxa ay xoojinayaan arrin aad muhiim u ah kaasoo ah korukaca kobaca dhaqaalaha fietnaam iyo inuu taagan yahay heer kor u dhaafaya 5% sannadkii laga soo bilaabo sannadkii 2010 waana kobac heerkiisu aad u weyn yahay marka la garab dhigo dawladaha kale ee adduunka waagii hore dadka deegaanku 14% waxa ay adeegsan jireen koronto ama leer si ay u helaan ilays ama iftiin ha yeeshee maanta boqollaydu waxa ay gaaraysaa 99% dadka reemiyiga ah ayaa helayey adeegga goobaha caafimaadka marka la garab dhigo 36% sano ka hor biyaha nadiifka ahi waxa ay gaarayeen 17% dadka deegaanka baadiyaha ah balse maanta waxa ay gaarayaan in ka badan 70% heerka saboolnimadii aadka u darnayd hoos ayay u dhacday 20 sano gudahood halkii ay ka ahayd 65% waxa ay hoos ugu dhacday oo keli ah 11% maalgashiga shisheeyaha ee tooska ah ayaa hadda ka dhigan wax u dhigma 90% qiimaha waxyaabaha ay farsamaysay fietnaam ee ay u dhoofiso caalamka haa waa hagaagtay fietnaam in badan ayayna hagaagtay heer uu wax soo saarkeedu guduhu ka batay qiyaas gaaraysa 7% sannadkii kobaceeda farsamada ayaa gaaray 13% iyada oo kobaceeda beeruhu uu ku dhawaaday lama dhaafaan ah 4% iyada oo kobaca qaybta adeegyadu uu gaaray 6.9 waa lambaro caqabadihii saarnaa ka kor qaadaya fietnaamta koraysa balse
waxaa jira mashaakil ka hor gudban hayaanka fiidnaam tan ugu horraysa waa dabeecadda nidaamka siyaasiga ah ee caburinta fiidnaam waxaa xukumay xisbi shuuci ama hanti wadaag ah oo aan oggolayn wax mucaarad ah nuuc walba oo uu yahay umana diyaarsana xorriyadda hadalka iyo xuquuqda aadanaha taas oo ka dhigan habkii fiidnaam ugu furmi lahayd adduunka hormaray tan labaadna waa musuqmaasuqa dawladda feentay kaas oo saamayntiisu soo muuqatay sannadkii kadib fadeexadda mashruucii midnimo 18 oo caan ka ah fiidnaam kaas oo la kulmay wax isdabamarin ay dadkii gacanta ku hayay ku boobeen balaayiin dollar islamarkaana sababtay xilligaas inuu xilkii iska casilo wasiirkii gaadiidku sidaas oo kalena madax badan ayaa xabsiga u galay haddii haddaba musuqu ka jiro gudaha waxaa jira wax ka daran oo taagan dibadda sheekada taal halkan ee ku saabsan shiinaha waa in shiinuhu yahay dawlad dagaallo fara badan oo taariikhda galay la gashay fiidnaam una arka fiidnaam mid ku haysata dhaqaalaha kana leexsanaysa maalgashiga shirkadaha waaweyn islamarkaana kula tartamaysa dhinaca siyaasadda una sii dhowaanaysa maraykanka oo ah cadowgeedii hore ha yeeshee iyada oo ay jirto hanjabaadda shiinuhu haddana waxaa jirta fursad uu haysto kobaca fiidnaam taas oo oggolaanaysa in fiidnaam danaheeda uga faa'iidaysato khilaafka u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha si ay u noqoto qiblada ugu nabadgelyada badan ee maalgashiga taas oo ay ku lamaansan tahay taageerada dalweynaha maraykanku fiidnaam ma aha waddan ku dhisan kala wadaag xorriyaddeedu waxa ay u eg tahay midaan jirin waxa ay ka soo baxday dagaalladeedii iyada oo la kufaakacaysa geerida 1,200,000 oo kun oo qof taasina waa tiro ku dhow dadkii ku shahiiday dagaalkii gobonnimodoonka ee aljeriya fiidnaam waxa ay leedahay gaas iyo nafto kuwaas oo in badan ka yar gaaska iyo naftada carabta dadkeedu aad ayuu u fara badan yahay waxa uuna ku dhow yahay tirada dadka masar taasina waa sababta ku qaaday fiidnaam inay hirgeliso siyaasadda xadaynta taranka oo ah in qoysku dhali karo oo keliya 2 carruur ah balse dhaqaalaheedu waa nool yahay dakhliga qofka fiidnaam ee sannadkii waxa uu ku jiraa kaalinta 3aad adduunka oo dhan tirada shaqala'aanta ama baagamuudadu dadka deegaanka waxa ay gaaraysaa 2.3 oo keli ah waxa ay ku jirtaa kaalinta 12aad adduunka oo dhan heerka tayada waxbarashada aqoonta marka aad dhaqan gelinayso tijaabada qudheeda isla shuruudan waxa aad heli doontaa natiijada qudheeda carabta iyo fiidnaam waxa ay waagii hore ku wada noolaayeen tijaabooyin isku mid ah iyo weliba shuruud isu eg ha yeeshee waxa kala duwan natiijada ilaa goorma ayaan ku sii jiri doonnaa meelaha ay aqoontu iska reebto oo keli ah noocan oo kalaha aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid.